sirmaqabe alla usahne sirmaqabe alla usahne sirmaqabe alla usahne sidee ku noqon kartaa sirmaqabe alla usahne ma waxaa ku noqonaysaa sirmaqabe alla usahne in aad muxuu ahaa taxadarka badisid dhegta taagtid dadka dhegaysatid wixii lagu soo dhahaana ama hebelaaya hadalkeeda aad ku noqotid dhedhamisid miis la fariisatid habeenkii markaas rirta tagtina ka fikirtid markaas miyaad badbaadaysaa oo sirmaqabe alla usahne noqonaysaa mise ismahaan khaliif noo sheekee sida kale aan ku noqon karno sirmaqabe alla usahne iyo qaybtii labaad ee taxanaha ahaa sirmaqabe alla usahne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركلة channel كيني أهاتو سنتقراتك يبرشد حكمة يولاشيني اسمها قليف علي أو مركلة إذين سيدا وحتى يلي أقل بد أورون وحتى يلي أقل بد أورون ما شاء الله وحاكو سعونينا مركلة برنامج كيني أها دكتورك قلبك إيو برنامج كيني نوع عصباعينو بلامي تحانها أها هل كان وحاكو هوري ميد oo kow part 1 kana waa part 2 sirmaqabe alla usahne sidee ayaa in lagu siro uga badbaadaysaa ma waxaa laga rabaa inaad taxadar badan ku jirtid inaad dadka dhegaysatid ma inaad is ilaalisid ma sidee lagu badbaadaa bal ismahaaney bal noo sheeg sirmaqabe alla usahne sidaan ku noqon lahayn sirmaqabe alla usahne ma waxaan ku noqonaynaa in aan muxuu ahaa markaa meel aadayna anagoo ka tashanay aadnaa anagoo oo macnaha irdhaysan inaa irdho badan qabtid inaa muxuu ahaa maanta dhan hadalka dhadhamisid waxyaabo fara badan may sidaas lama rabo sirmaqabe alla usahne meelna ma fariisto ayay walaasha ismahaan ku leedahay dadka hadalkoodana kuma noqdo dadka ayuu wuxuu u qaabilaa si daacad ah oo dhab ah wuuna dhegaystaa wuxuuna ka hadlaa wadnihiisa ayuu jawaabta ka bixiyaa wuxuuna ku jawaabaa hadalsan oo wanaagsan oo daacad ah ayuu ku jawaabaa sirmaqabe alla usahne waxaa kaloo ku noqonaysaa in aad mar walba ahaatid qof wadnihiisa ku xiran oo nadiifa oo daacad ah oona muxuu ahaa dadka dhegadhegaynin aan dadka ka shakinin oo shaki badnayn maxaa yeelay haddaa shaki badan tahay sirmaqabe alla usahne matiido waxaa tahay sirqabe maxaa qofku badanaa sirta qaba wuu shaki badan yahay muxuu ahaa wuxuu leeyahay waxaan muxuu ka wadaa qofka muxuu waxaan ka wadaa maxaysaan ahayd alla naagta muku qiyaami rabtaa alla ninka muku qiyaami rabaa alla anigaayay hadalkii la wareegaa meeluu la fariisanaa habeenkii ma la hurdi kartid subaxa ku xiga waa taagan tahay irdhaa kugu jirto laakiin ismahaan waxay ku leedahay sirmaqabe alla usahne waxaa ku noqonaysaa adiga oo saafiya oo nadiifa oo waxba kugu jirin oodan wax alaala wax jira aadan ka fikraynin qofkaasna aaminaysid qofka ku sir rabo waa dhegaysan ma qaadanaysid horta warka war xun markuu yahay marna lama qaato qofku diraayo lama qaato macnaha waa dhegaysanaysaa wadnahaaga hadduu nadiif yahayna hadal wanaagsan unbaa kasoo baxay oo sax oo rune hadal rune oo sax ayaa ku hadlaysaa hadduu marba wadnihiina nadiif yahay hadalka ku hadlaysi been ma noqonayo qofkana kama heebeysanaysid oo ma dhehaysid allah yuu kaa xumaanin allah yuu ku yeelay isma dhehaysid macnaha sirmaqabe alla usahne haddaa aad rabtid inaa ahaatid waa in aadan dadka ka heebeysanaynin waa inuu wadnahaaga nadiif yahay warka kasoo baxayane maskaxda uma gudbinaysid afku kasoo baxaya qofka kama heebeysanaysid kadibna sirmaqabe alla usahne waxaa kaloo ku ahaanaysaa inaa ahaatid qof daacada nafsadiisa daacad ah oo beenta sheegin oo warka sidii loogu weydiiyey oga jawaabo oo daacad ah oon shaki badnayn marka adiga oo shaki badnayn qof ayaa waxaa ku aragtayba jirin waa daacad qofkaas waxaa u haysataa inuu daacad yahay dadka badanaa sirmaqabe alla usahne la dhahana badanaa dadka way aaminaan oo dadka ma dhahaan beenlow waa hebel beenlow waa lama dhaho qof hadduu beenlow yahay xataa beenlow waa lama dhaho waa la dhegaystaa waa la aaminaa wuxuu ku sheegay ilaane anaga waxaan nahay dad islaame qofka oon dadka aaminin oo dadka beeniye waa wax xun
subxaanallah ilaahan ka magan galnay marka waxaa samaynaysaa qofku warku ku dhaw miya saan maa dhacay wuxuu kaaga sheekay kasoo qaado kala haasaa waay kanaa dhacay wax ka jira maaha beentaada waa ma dhihaysid adi markii adi laguu soo dhaco oo adi nafsadaada loo soo dhaco adi lagu amri rabo oo wax lagu yeelka maya ani waxaa samaynaya ana i jirtaa sug adtaada kasoo baxa ii sheeg wixii dhacay wixii kasoo qaado kale wixii kaaga sheekeeyey waxay ahaatabo macnaha waxyaaba fara badan nolosha nolol maalmeedka wax fara badan ayaa lala kulmaaya qofku ruwaada markuu kaaga sheekeeyo warkiisa waa dhegeysanaysaa miya haa ma ka shekanaysid ma yeelaysid waa dhegeysanaysaa waa iska joogaysaa haddaa ratid arrinkaas oo macnaha inaad degdeg ku ogaatid waa ka fariisan kartaa xoogaha adoo daacad ah laakiin adiga waa iska dhegeysanaysaa waa dhaafaysaa marka waxaa dhacayso adiga wax reaction ma sameynaysid oo ma dhihaysid waxaasuu ku dhacay oo qofkii uma xanaaqaysid maxaa yeelay wadnahaaga qofka wax lagaaga sheegay wax uma haayo macnaha sirmaqaba alla u sahnay kow waxaa ku noqonaysaa qofkii wax lagaaga sheegay ee lagugu diraayo qalbadda wax xun uguma haysid marka qalbadda kuma dhaqaaqayso dhay kuma dhahayso malax kuma jirto wadnihi dhig kuma dhahayso marka waxaa samaynaysaa waa dhegeysanaysaa xalada masaasa mahebela saas yeela ha oo saasuu yiri haa soo imaanaysaa qofkii aa weydiinay nin ha kuu ahaado hooyo ha kuu ahaato aaba ha kuu ahaado walaal ha kuu ahaado daris ha kuu ahaado hadaarati waa weydiinaysaa haddii kalena ma weydiinaysid laakiin waxaad dareemaysaa wax oo gudahaaga ah warkan qofka sheegaya hadduu wadnahaaga nadiif yahay wuu fahmaya wadnaha ka fahmaysaa hadduu uu wadnahaaga wasaq yahayna reaction aad samaynaysa waa boodaysaa waa naxaysaa waa xanaaqaysaa idinka ogaada mar walba oo wax laidin sheego oo boodaan oo xanaaqdaan waa xanuunsan tahay macnaha walaashaa ismahaan waa dhakhtarka qalbiga sidee qalbada ku daaweynaa oo adduunya aakhira ku guulaysanaa aan ka hadlaya aniga marka naxdintaas waa xanuun ogaada waxaa qof lagu sheegay reaction ma samaynaysid ma xanaaqaysid ma dhehaysid muxuu ahaa waxaasay ku dhaceen hebelaaya waxaas ku dhaca bug cirka ma gelaysid hebelaaya kaa sheekeynaysa mogta way ku xamanaysay waxay ku tiri waxaani kaa sheegaysay saani kaa sheegaysay cirka ma gelaysid oo ma xanaaqaysid waa dhegeysanaysaa maqaysaysa tiri haa waxay ka wado macno ma leh waxna xanta waa loo baahan yaha dhihileed ninkaagaa been lagaaga sheegay walaashaa ama walaalkaaga been lagaaga sheegay darisaa been lagaaga waxay rabtaa hadda been lagaaga sheegay waa dhegeysanaya wadnahaaga hadduu nadiif yahay oo sirmaqabe alla u sahana tahay sirba ma qabtid qofkaas ma dhibsanaysid wadnaha kuma dhaqaaqayo inaa boodidna shaydaan kaama shaqaysanayo waa dhegeysanaysaa okay miya bis iska joogaysaa adoo iska joogtid maanta way dhaaftay biri camalaa warka inuu run yahay iyo inuu been yahay wadnahaaga asoo sidiisa aa ilaahay kuu soo diray halkaasa lagaa gelinaa runta iyo beentii arkaysa dhag waa fahmaysaa qofkaan been loo yimi qofka inuu run loo yahan waa fahmaysaa laakiin wadnahaas waa wadna nadiif ah boqolkiiba boqol oo vibrationkiisa vibrationka wax oo vibration la jiro oo wadnaha oo ilaahay kugu xiraayo wadnaha wuxuu ilaahay si dhab ugu xirmanaya keliya enerjigaaga anagana energy aan nahay wadnaha wuxuu ilaahay si dhab ugu xirmanaya markaa nadiif tahay daacad tahay xasad kugu jirin xaqdi kugu jirin dad dhibaato u rajeynaynin balaayo mareegaynin nadiif tahay nafsadaada ilaashanaysid aadan ahayn qof dad addoomo u ah oo sida neefkii xarag inta lagu xirto wixii hore laga samaysan kara aadan ahayn shaqsi nafsadiisa ka adag oo ilaahay ku xiran oo daacada oo qalbadiisa nadiif tahay oo qalbada xig intay dhahdo boodin xanaaqin macnaha markaas nadiifaa noqotay markaa nadiif noqotid qofaa wax kuu sheegay waxuu ku daldalay qofaa jeceshaha waa xataa hooyada aabaha walaalka walaasha dariska ninka naagta ilmaha qof ku rabaa ahaado aa wax kuu sheegay qaa inuu noqon karaa qofka waa dhegeysa masaas ahaa xanaaqi soo u yaalay wiilkayga see loo yeelay gabadhayda see loo yeelay waxaan soo ku dhacay kan soo ku dhacay qaali iyo buqina gashmid reeyaalamis haddaan saa samaysay sirmaqaba allah u sahana matii diyaar u noqon naarta jahannaba adduunkana waa ku kadeedmanaysaa aakhirana naarta jahannaba lagu galaya haddaa saa samaysid waa arin aad iyo aad u xun arrinkaas hadduu qofka isla kacaayo uuna hiilo iyo ficilo ku jirto marka qofka binu aadanka ah oo nadiifka ah oo rabo inuusa nadiife wadnihiisa ilaah ugu xira rabo waa daacad waa nadiif xin ma yaqaano xaqdi ma yaqaano
kana ila qabiil iska badaa warkiisa kana dhalay iyo kana ila dhashay iyo waa ila dhashay hooyadii waa aabbahay waa xataa ma jirto maxaa yeelay adduunkan dadka oo dhan ilaah wada keensaday waana laga wada tagayaa godkiana dadka sugaa aakhiro una markii lasoo istaaga naftaada waxa waaye waa hoosheedii u taalo jana iyo naar meesha gali lahayd marka waqtiga la gaaro ahlu janata ahlu naarata la dhaho gadaal uma noqon karno hooyada ay aabbahan wax ma kaa qaban karaan walaalaha wax ma kaa qaban karaan ilmaha ma kaa qaban nin iyo naag warkooda daa wax isku tari kara male marka anaga waxaa u baahanahay Soomaali haddaan nahay inaan helno dad fara badan oo wadnahooda nadiif ah oo daacad ah oo wadnahooda si dhaba ilaahay uga xiro kadibna nuurkaas iftiinkaas aan dadka gaarsiinaa iftiin ayaan nahay anaga dhan energy iftiin light ayaana nal ayaan nahay anaga nalkeena iyo nuurkeena inaanan daminin oo wadnaheena waaye nuurkeenaas inuu nuuro una dadka wax ka gaarsiinaa iftiinka nolosha ayaa la rabaa ma aha inaan qalbadeena mugdi ka yeelno cariiri ka yeelno oona xanuuntaa oo dhibaatoonaa oo sirmaqabe alla u sahane aanan noqonin oo nala siraa oo nala bahdilaa oo nala laaliciyaa oo hurdo la-aan nagu dhacdaa oo micnaha qarow habeenka ku jirnaa oo qaracannaa oo noqonaa dad kala daadsan oona noqonaa dad micnaha meeshii la arkaaba dhiigaayo ama wadnahooda dhiigaayo ama hilibkooda dhiigaayo ama qalbadooda dhiigaayo maxay ahaataba sirmaqabe alla u sahane waxaa noqon kartaa keliya ayay walaashaa ku tiri in aad wadnahaaga nadiifisid kadibna wadnahaaga aad ku xirtid ilaahay aana warka dadka raacraacin iyadoo warkii buuxo oo sideeda ahne uu ku imaana allah ayaa kuu soo diraya malaa'igtiisii inta lagu siiyo meesha lagaa leexina sirmaqabe alla u sahane wax laga dheerki kara ma aha waxaan ku leeyahay channelka Ismahaan Khaliif ee toosinta garaadka iyo barashada xikmadda la socda meeshaan waxaan ku baranaynaa sidee garaadka ku toosinaa iyo barashada xikmadda maantana wuxuu ahaa barnaamijkeenii ahaa dhakhtarka qalbiga qaybtiisii ahaa sirmaqabe alla u sahane subscribe like and share dhaha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa noogu soo xigi doonta qaybta saddexaad salaam